السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالك عادي قد داون إنساني وجنال سبيع دبلا علي فضلنا داتكو عصوب تاي سبسكرايب نوسر كمبلا الكفروس وكوسو قارو مقارو البوان هالكسو قرنو وجنال كبيان مشايقة عين رورات كل هاي ريكو جوغا عن روبهلين خاليين عن لك كلامين وحوكو كسو قبل محقمين وانيك يوتيوب قبصت بالدها annaga qorta ku siri waxa maanta hadana mar kale miiska inoo saaran xayawaankii weynaa ee bilaaxiniyaha ahaa xayawaankan yaa soo noqnoqotay aqliyadiisa xun baa wuxuu ku soo celceliyay hadalladee stress ku keenaya dhankaadu haweenkii baa caqabad ku noqday isaga marka wuxuu isagana isku dayay inuu isagana haweenkii aflagaadeeyo marka ninkana aad soo qabtay ninkana qadaraad badan ka soo haya dadka youtuberada ama waxyaalaha kale isticmaalaan waa normal way waa dad caadi ah waxa quman bal soo gudbiyaa wax soo gudbin markaana ninkana na taageerinaya ninkan si gaarsi jawaabihiisa helo si waa inaad la wadaagto isaga laba su'aalood baa barnaamijkeennii hore ku jirtay inay haweenku ku adkeeyeen iyo in waxa haween lagu qabayo buu lahayn labadaas su'aalood baa dhibaya haddana maanta maxay dinayaa waa barnaamij kale oo ah wuxuu oranayaa isla daawana wax yar ku socod fiidiyogiisa waan idin salaameeyo khiyaanooyinka ugu badan ee garoobku isticmaalaan si ragga u soo dhaxeera galiyaan waxa kamid ah inay ku dhaxdo ciyaalkan haysto waa ciyaalkaaga oo kala walaalo waa kuwa khiyaanooyinka u faraha badan ee garoobku isticmaalaan waxa kamid ah uu leeyahay inay yiraahdaan ciyaalkan haysta waa ciyaalkaaga oo kala walaalo ma gabadh baa horta nin soo xira galisa mise nin baa gabadh doonta gabadh la doonto oo waqti loo maro bararka jirnay nin hadad gabadh u sheekeynaysan nin gabadh u sheekeeyana waa nin uu wax ka baxo doona waxba ka baxayn gabdhaha dadka ka lugoynid maada doonayaan wax lagu siiyo wardaanyarkii wadada istaagi jiraan naqaan gabadhna gabdadkii hore waxay isticmaali jireen 200 oo geel ilaa 400 oo geel laga bixin jiray fardaa laga bixin jiray inaad maanta xabadka kaarka ama biyaha yar ee hotelka yar isu raacdan waaba lagu fudeediyay saasa lagu fudeediyay laakiin adigu xaliyo hadaada lahayn wixii lagu shaqaysan jiray dadka uga daa hablaha dadka ka fadeexdeen qashiyan madaxa diirin ku socoyo gana fiidiyogiisa kale ma aha kuwaaga oo kale adiguna ma dalin baraada ma aha kuwaaga oo kale aduguna ma aadan dhalin waya gabadh garoobo ilma haysata hadii aad jeclaato oo waqti isla wadaagtaan ilmaha ay wadato ma tuuri mayada kaliya rabtaa iimaanaanta inta leeyahay ku jirta maxay tahay hablaha dadka ka lugoyno ma koran la xaliye caqabada ku haysata ilaahay ka xaliyo anagu ma xalin karno oo ku ducayn kaliya marka caqabada ku haysata aan ka xalinne bal soo dhigo kaliya inaad haweenka aflagaadaysa ma aha saasa koran laani ma aha kuwaaga oo kale adiguna ma dalin baraada adigu ma aadan dhalin hadaadan dhalin gabadh baa dhashay ama isku qaado ama ku dhaaf meesha wax garooba oo rag soo xira galisay ma jirto haweenku waxay isticmaalaan oo kaliya ya inay waxaad u soo bandhigato ka aqbalaan ama ku diidaan marka xaliyahan waxaan ku leeyahay youtube-ka qashinimada la soo fadhido iyo aqli xumada iyo dambeer xumada kugu jirta labadaas su'aaloodna wali jawaabtoodii waan ka sugi wali jawaabtoodii ma hayo inaadan buuriyaba lahayn tii wax lagu qabsanayay iyo inaad haweenku ay kuga adkeeyeen labada mid kalena barnaamijkeena mid maanta dhaxtaala caruur khayaano dad ka sheekeynay haween ku soo gareegaliyaan ma gabadh garooba adinta ilma kaala tagtay ay ninka ku soo xirgelisay mise tuba adi ku soo xirgelisay labadaas oo koraan ma aaminsan waxaad ku dhaleysay inaad leedahay laakiin labadaas su'aalood baan jawaabtooda kaaga taaganahay inay adiga gabadh kaala tagtay ilmo iyo inaad adiga lagu soo xirgeliyay wax shuuran ka humna wax shuuran ka rabna xaliya like subscribe iyo share iyo comment aad bay u mahadsan yihiin dhammaan daarta YouTube madaxay saaran yihiin waana salaamaya subscribe ta dhacda inoogu siiya inoona la gareeyo si uu noogu faafo barnaamijkeena
haddii aad igu taageersan tahay fikradan ah xalliye inuu xayawaan haweenka isku wasakhaynayo nijaasaynaya yahay like iyo subscribe dhac ku sii wixii guriga yaalo dhan ku dhufa like waad ku mahadsantihiin halkaas inuu ogayaa barnaamijkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.